dadku been bay sheegaan mugta balaaya mugta intaas la isku afufaya mugta wixii adduunku wax xumaaday okay ha waa adigii baad tahay marka yes adigoo halkaas waxaad noo cadaynaysaa adigoo halkaas soo fadhido in maxkamad ay kaa furtay oo warqad kuu samaysay shareecada islaamka iyo markhaati shareeca yes shareeca labadeedaba go'aanka noo gaadhay cabdikariin maxamed waxaana cadaynaya adigoo ah nimco ibraahim saciid yes baan banaanka ka maray December waxaana ka soo maqanahay okay ninkaas 5 bilood okay haddana xuseen ogaadeen waxaa kugu diray aabbaha oo kaa doontay yes waalidkayga ay gu daray gabadh wakaaladeeda yaa dhiibay soo aabaheed maaha okay haddii aan la hadlay ibraahim saahid wuxuu cadaynayaa in ninkaasi ay maxkamad shareeca kaga furtay haddana ninkaan isagoo ku siiyey aabbaha baa cadaynaya nacamtu bilaahi okay madii ogolaanaysaa berito inaan asaga dhinaciisa aan wareysto wuxuu qabo oo berito 5 galabnimo aan maxkamadda keeno oon dhegeysto bal isagana wuxuu ku hadlayo waxaad wareysanaysid wareysaaniga waxba igama gelin kowda kow ani waxaan rabay inaan kuu sheego foostal igu soo riixay dulmi ma ogolaanayo waaye nin xun oo saqajaan oo ka ogolaan waayay shalay inuu ani sharaftayda ceebeeyo aduu rabay inaan ooyo oo yacni rag u nacana adeer macalin adeerkii baan guursaday 9 foosta haddii hawii soo riixana I'm gonna kick out waan laagayaa ma fahanti waaye laabtaasana ka xaragooda cadayna waan haystaa ma fahanti waaye marka daadigii hawiyihiina waan sii salaamaya foostadaana waan laagay may horta meesha adeer aabahay iyo dadkayga iyo maxkamadda iyo cadayn wax walba u baahdina diyaar baan lahay ma fahanti horta adeer aniga hawiye iyo kala hadli maayo horta dulmi baad ka sheekeynaysaa sababta ma taqaanaa maxaa dulmi ku sameeyay adoona labada dhinac dhegaysanin oona waxba kitaab jaamaca u mari karin oona afar markhaati u haynin inaad intaad qof dulmidid meesha soo fadhiisatid totally waa qalad laakiin hadda waxaad ii sheegaysaa inay maxkamad uun kaa furto soo maaha maxkamad shareeca iga furto garsooro loo maxaan ku idhahdaa qaadilo wax walba leh okay ma haysa marka waxaad muhiim ah inaa culimada beri keeno naag haddii xitaa ay run tahay inuu ninka sawir qaawan kaa qaaday ninka hadduu naagtii sawir qaawan ka qaado ma iska furi kartaa inaan culimada weydiino soo maaha kelmadda wallaahi shareecadii go'aanka ka gaadhaa meesha taala diintuna ma aniga isagu waxaan qorqorayna ma fahanti laakiin adilada meesha loo cuskad inaan ogaano waayo soo maaha taas soo sax maaha saas maaha dhegeyso shareecadii aniga iga furaysa soo diin shareeca maaha laakiin inaan ogaano soo maaha laakiin culimada aan weydiino haddii gabar uu nin qabo oo sawir qaawan ka qaado haddii run tahay aniga foostada banaankan ka jooga cudadeediina waan dhamaystay ninkaan 4 bilood iyo badh baan kala maqanahay cases close cadayn iyo information iyo maxkamad iyo waalidka dad u baahatidna waa lagu hayaa bas telefoonka luuq ma usoo dhigtaa adeer telefoonka Ibrahim Said aan hadlay hawan gabadhi hadii ula hadlaysan kuugu dhiibi karaa xataa bas nataashi usoo telefoonka aabba ani aabba waa hadlayno wiilka magacayga laakiin sawiraan leeyahay mar dambe dulmi inta timisid meesha ma soo dhigan kartid big hunter ya di maxaa sutiin walka ma yahay halkay meesha ma soo dhigan kartid mar dambe information aan leeyahay adoona wax run ogeyn ma ayna ka ahayn maalinta qiyaame adiga iyo wallahi qofka iska daa wax kale hal commenti oo qaldan iga soo qoray yawm alqiyaama maalinta ilaahay loo tagay ma laakiin adeer waxaan rabnaa waxaan rabnaa xumaan ku lagu qaba gabar ogaadina taan way ogta ogaadin meesha ka joogo inaan gabar ogaadina dulmiyo ama aan gaf u geysto ilmaha laga qaadan aan ogolayn waad dulmisayba nin inta sharafteeda iyo horisii u gafay ayaa doonaysa waliba inuu maanta midda kale ninkan waan kala maqnayna waaba kala dhamaano waan kala qanacnay wuxuu reerkayga ula hadli waayay muxuu afartii biloodan kala maqnaynu hadli waayay adeer macaan dhegeyso adeer macaan marka hore horta idinka isfahansanaya idinka isguursanaya idinka dhegeyso adeer marka hore idinka isguursanaya idinka isticlaanaya idinka doonaya haddana idinkii baa dagaalamay adeer macaan moogta fiiri meeshan adeer ani cid istoonatay ma arkay weligeed bay dadinta isguursadaan horta ma la kala tegi jiray horta dhegeyso adeer macaan waxaan ku dhahay wax kasta way cad yihiin adduunyada hadda meel fudud aashe ka soo dhigtaba arrin fiican ay igala haashay waxaad igu tiri adeer haddaan kaa qaldanayn ninkan markii uu sawir qaawan iga qaado oo igu soo diray one time seed oo igu soo diray Abdikariin Maxamed wiilka saruur ee habargidir waxaad tiri waxaan u gudbiyay maxkamad ku taal Itoobiya maadaama aan shaqeynay markaan u gudbiyay waxaad tiri shareeca waa qaynuun culimadii waxay dhaheen naag haddii ninka qabo oo sawir qaawan ka qaado way ka furantaa dhegeysa aniga hadalka waan kuu soo koobay ninkaas iyo maxkamadda waxaan iskula jirnay muddo ma tahanti waayo maxkamadda garsoor baa fadhiisto wax inta la iska qorqoray hool la iska dhacay ma jirto marka waxaad tiri marka maxkamadda Itoobiya warad kuu soo qortay ninkan inuu ka furan yahay adiguna sida aad hadda tustay qoraal u qorto tiri warqadda muu sheegay waan ogeysiiyay banacamta bilaahi warqadda muu dirtay ma isaga iyaga bay sheegu dhaw waan ogahay okay ana mi isdurta warqadda mi isdurta arkay waan ku soo diri karaa
hadda nataasha igu dir adilada ay cuskadeen bal aan fiirina aniga culimada adilada loo cuskaday iyagoo maxkamadii nool baa lagula soo hadalsiinaya ana qolkaaga waan ka digayaaye may wasdiri kartaa adeer laakiin warqadda ma ii soo diri kartaa sano wax walba cadaynood iga baad waan kuu soo diri karaa laakiin aniga ma dulmin kartid hadda bal horta may ku dulma bal dulmi laguma quure laakiin wixii ninkiin wuxuu leeyahay may faranqay wax fiiri fiyuuska hadduu kaa dhacay daahir oo aniga maaha inaad wax waad iska hadashay maanta oo dhan baad waxaad rabta meesha ka sheegtay kowdhe adeer aniga kuma caayin kumana dulmin waxna kama sheegin su'aalan ku weydiiyo I have one question for you okay ilaahay muxuu soo dejiyay furiin iyo qabniin soo maaha naageenin hadday isfahmi waayaan isdhaqan waayso lama kala tegi jirin aniga galabta fiiri adoo aniga ila hadlin waxaan ka sheegay leefkii iyo 9 kun oo qof daawanaysa gabadha Norway joogtay mar waa leeysan adiga ahayn ana sheegay adima idirт okay fiiri ana sheegay adima idirت dad badan oo waxaan ku sheegay ay dhageyso fiiri adiga laba rabo moogta in xanaaqdo hadda xanaaqdo waxba ka halaabay fiiri xanaaq ma aniga mana xanaaqi kariidnay ma gaaray waxaan ka xanaaqana meesha ma joogo waxaan meeshan u imi maxaa weeyaan in aan anigu runta faraha ka saar ma fahanti fiiri baan waxa xanaaqanay ma taalo ninkiina waan kala tagnay waan cudud baxay aruusad baan ahay todobaan ku jira ninkii ma seersan isagay u taala qorfiya hay la cuna ma fahanti fiiri laga beed bixiyo xalaal ugu gursan soo raaxaysan saanay dadkan todobadeed aan ka qaatay waan isii salaamay ani waxaan rabaa kaliya inaan ogaado adilada loo iska karo ninku qabo hadduu sawir qaawan xitaa kaa qaado inuu kaa furan yahay adiladaas bal macluumaadkaasaan rabaa shareecada sheegiisii aayadda sheegiisii xadiiska sheegay inaan ogaaday wax loo cuskaday taasoo baa rabaa inaan ogaado haddaba intaas sheekada fuudahaba haddaba gabadhu leedahay kaliya sawir iga qaaday ayaan u sheegay maxkamaddan waxay tiri haddaba sawir kaa qaado kaa furan yahay ninkan oo saas isaga furay hadday tahayba arrintu waa fiican tahay arrintu meel fiican ay taaganta marka culimada la weydiinaya arrintaas marka ka soo baxa mudka bal arrintaas adkaatay oo fogaatay meesha waxaa la dhahaa hadalada ku siinaya sida adkaatay oo fogaatay daayir cali soo niyo horta waxaa jira wax dhaqan la yiraahdo inaga dhaxeeya ogaadeen hawiyanahay in adeerow waxna waa iska kaftan waxna waa reality moogtaa dhaqan baa inaga dhaxeeya iskuma xadgudubno waa iska guursanaa balaam ismuud galnayo dad is xusmeeyeen nahay daayiro wixii idinka dhaxeeya adiga iyo Xuseen Oji anigu idima dhaxgalayo laba nin baa tiin TikTok jooga wuu caytama waa caytantaa waan arkay soo ku caayaya xaqa sidiisaba in qofka aad ka helisid ma adii Xuseen waa nin wixii idinka dhaxeeya waa idinka dhaxeeyaan laakiin daayiro in adeero ila haga gabdhaas ka soo